markii aan ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Ethiopia ay la galeen ma baqaan af Soomaali wixii lagu dhaho agreement intii aniga aan Congress joogo wadanka Soomaaliya horta arrimaha noocan oo kale markaan arko anu aad baan horta ula yaabaa yani qof siyaasiya ama siyaasi sheeganaya ama inuu ummad Soomaaliyeed kursi ku matalo sheeganaya intuu soo istaago dadna inuu isagu isxigsiyo dad kalena uu ka dhigo dad aan jirin ama ma garanaysaa nacayb yani inuu muujiyo hadda qaabka uu hadlayso gabadhan waa gabadh siyaasiyada hadalka ay ku dhawaaqday ah yani ummad dad Soomaalinimo nala sheegta oo yisitaan uu ku jiro oo xitaa Soomaalinimadii u ogoleen ma garanaysaa inuu afkeedu soo maro dad Soomaaliyeed baa ma garanaysaa arrimahaas u fuliyay yaa horta Ethiopia keenay wadanka Soomaaliya waxa horta keenay dadka calanka Soomaaliya wata dadka calanka buluuga wata ayaa keenay wali dawladda Somaliland intay ciidan Ethiopian iyagu horkacayaan intay horta soo kaxeeyaan shacab Soomaaliyeed ku waysan lahayn laakiin se dadka fuliyay ee arrinka ka dambeeyay waa dad siyaasiyiin Soomaaliyeed sheeganaya waa dad ma garanaysaa sheeganaya in calanka buluuga hoos harsadaan baa horta Ethiopia riyooyinka ay lahayd inay ma garanaysaa dhul Soomaaliyeed ay lugta saa u geliyaan horta dadka u fuliyay waa dad calanka Soomaaliya aaminsan weey marka maanta markay Somaliland tan samaysay in qof kasta oo siyaasi ah kii hurday kii ma garanaysaa say walaaha kii ma garanaysaa af Soomaaliga aqoon inuu mid kastaaba intuu soo baraarugo soo inuu dhaho ummadda Soomaaliyeed dhulkeedii baa la dhacaya ma Cabdishakuur isaguna qaabku u hadlayay isagoo iska dhigay in ummadda reer Somaliland jecel yahay ama u muujinaya ma garanaysaa kalgacayl ma garanaysaa ama dadkaas dhibaatooyin in loo geysto isagoo muujinaya ay wuxuu ku leeyahay dawladda Soomaaliya waa inay cadaadis ay ku saarto oo awoodeeda ma garanaysaa aqoonsi inay u adeegsato way Somaliland marka dawlad la cunaqabataynayo ama cunaqabatayn la saarayo ma shacab baa la saaraa mise dawladda la saaraa qasab maamulka meesha ka jira la saaraa si shacabka uu dhibaatada ugu dhacdo marka isagoo shacabkii reer Somaliland isaga dhigaya inuu rabo ama dad inuu jecel yahay ayuu wuxuu ku leeyahay dawladda Soomaaliya waa inay cadaadis saartaa dawladda Somaliland oo cadaadis ku saartaa hadii ila dhaqaale noqon lahayd iyo ma garanaysaa hadii noqon lahayd wax kasto asaasiya oo xukuumaddaas u baahan tahay waa in cadaadis iyo cunaqabatayn la saaro taas waa qodob waxaan arkaynay ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya oo isaguna arrimaha badda ka hadlaya ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay Ethiopia riyadeedu fuliyay Ethiopia oo ku riyoonaysay intaasoo sano boqolaal sano ku riyoonaysay in dhul Soomaaliyeed intay cagti geliyaan ay ummad Soomaaliyeed ku laayaan horta ninkii riyada u fuliyay buu ahaa in maanta marka qiira Japan intuu meel soo istaago dhaho meeshan waxa weey qiiradii kama muuqato wadanimo kama muuqato waa noocaas weey marka dad gaar ah markay wax sameeyaan in Soomaalinimo loo adeegsado markay Soomaalinimo ama calanka Soomaaliya dad hoos harsanayaan markay sameeyaan waxna in caadi loo arko war ummad shacab Soomaaliyeed iyo ma garanaysaa ayaa koonfurta lagu leynaya oo gobolada Soomaaliya qaarkood lagu leynaya oo ciidamada Ethiopianku ay maanta joogaan cid ka hadlaysa ma jirto yani arrimahaas caadi baa loo arkaa arrimaha calanka Soomaaliya lagu keenay hadii calanka Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliya lagu dilo waxa weeye waa caadi baa loo arkaa marka Soomaalinimada yaan dad gaar ah loo adeegsan yaan ummad gaar ah markay wax sameeyaan la muujinin qiira beena marka calanka Soomaaliya dad aaminsan ay wax sameeyaan yaan la oran waxaas waa wax iska caadi